nima adduunyada lagu wada matooba hadduu maan ku laban yahay dadku malama yeeshee nima adduunyada lagu wada matooba hadduu maan ku laban yahay dadku malama yeeshee midigtuba miciin male hadday bidixdu maqan tahay waa laba mataano hawsha maamulaaye midigtuba miciin male hadday bidixdu maqan tahay waa laba mataano hawsha maamulaaye muruqiina maalo dhulka mira ku beero muruqiina maalo dhulka mira ku beero macdanta dahabka muujiya wanaagahay muujiya wanaaga dadweynahan halkan isugu yimi isuduwaha wasaaradda beeraha shaqaalaha hay-addan ADO waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaynu halkan maanta isugu nimi in aynu iskaashatada xeerkeedii aynu ku akhrino oo aynu isla qaadano xeerkii la soo diyaariyey ee guddida iskaashatadu ay ku howlaneed ayaamahan inay halkan inooga akhriyaan ajandaha shirku waa intaa aan kusoo dhaweynayaa waxaan la kacay anigu inaan sharxo asbaabta sharcigan aynu soo akhriyayno maanta siduu haddabeed ma faa'iidadu leeyahay inaynu haddabeed maxran ka sheego ayaan u kacay sideedaba mashruucani waa banaanyaal dhul magaranaysa haddabeed maayo daynu leenahay adoo tabcan ayuu ka qodan yahay kana baxay waxaana loo baahan yahay xeer ilaaliya oo nabadgelyadiisa ilaaliya iyo wixii cadowey haddabeed may ku soo duula waxaana sanad ka jirtaa in magaranaysa roobku way yaraayeen daaqu ciidhibu ku jiraa waxaana kolkaa waxaana la soo degay reeraha soo degay agtiisa markaa inuu xeer ku ilaaliyo ayaa lagama maarmaana oo yacni dadkeennan mashruuca lihi haddaynan aynan hubkan ku dagaalamayna maaha yani hub rasaas maaha waxa weeye qaynu lagu kala dambeeyo oo qofkii dambi gala lagu ciqaabo waa muhiim awal waynu iska dalaadhacaynay hanti baynu gelin jiray dabeedna waynu iskaga tegi jiray haye marmarbaa haddabeed maayo ayaa waqti loo helaado wax laga gogoosta ama la ilaaliya iminka waxaa la diyaariyey sharci soo jeeda oo haddaba qodobo badan leh ilaa 10 beja oo sharxaya baahida mashruuca sharxaya iyo dintiisa waxaa aada iyo aada isugu taxallujiyey hay-addan ADO ayaa sula geysay inuu xeerkan soo baxo ayadaan ugu mahadnaqayna ayadaa inoo maalgelisay oo cagaf iyo qalabna siisay horena gacanta inagu haysay oo ina daadihinaysay imikana dee waxaabay magaranaysaa qalab qaalaya iyo waxtar bay inoo geysatay waxaa weeye dhegafyo ha loo dhegeysto xeerkaasi waxna awood waxa uu yeelan doonaa guddida inoo magacaaban odayaasha inoo magacaaban wixii ku cuslaada waxaa loo gudbin doonaa maxkamadda iyo xeelaalinteeda saldhigga booliska iyo wasaaradda beeraha sideedana mashaariicdu waxay hoos timaadaa wasaaradda beeraha ayay hoos timaadaa waa dan guud waxa weeyaan danta guud ee ciidamada iyo maxkamadaha iyo haddabeed maayo dibaarminada
mas-uuliyadda saaran ayaa tanna ka haysata inay fuliyaan waayo wax soo saar gadbadii ka soo baxdaa waxay baajinaysaa gadbad lacaga adag ku timaada oo dibadda inagaga timaada markaa waxaa aan soo jeedinayaa in xeerkaa loo dhega nuglaado oo siduu u qoran yahay loo magaranaysaa loo ixtiraamo oo loo fuliyo haddana inagu aynan waa warqad buu ku qorayay sharcigu waa intaasoo beej weeye laakiin oo qoraal ah laakiin dadkaa la rabaa inay magaranaysaa ay iyagu shaqeeyaan oo ay cuskadaan xeerka laftiisa xeer la-aan ama sharci la-aan waxba ma socon karaan ama gudaha ha noqoto ama dibadda ha noqoto ama dadkanala ha noqoto ama dadka kale aynu wada degani deegaanka ha noqotee cadow badan buu leeyahy mashruuc weliba sanadkan waa ugu sii daranta oo daaqa aada iyo aada u kooban sidaa daraaddeed waxaa la akriyi doonaa oo qodobada loo akriyi doonaa xeerkii aynu dejinaan ku hawshoonnay waanu dadaalay waxaanu sinidhi baahida annagoo kaashanayna ragga sanad walba dhibaatada mashruuc ay soo maraysay annagoo kaashanay waynay ku mahadsan yihiin oo si xoog leh oo qoto dheer ayay uga doodeen waxaana la isla gartay inta halkaa laga akriyi doono ayaa la isla gartay sidaa awgeed waa salaamantiin waxaan soo jeedinayaa xagga qaynuunka iyo maxkamadaha waa arag baan ku ahay in badan baan soo waday ilaa 1964 ilaa waqtigan ayaan gacanta ku soo hayay markaa waxa weeye muhiimad qaaliya ayuu u leeyahay danteena iyo danta mashruuca intaasaan anigu aan kusoo gaarinaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu umayno iman horta marka hore waxaan salaamayaa maamulka magaalada dariiqadan beerato dhammaan guddoomiyaha guddiga iskaashatada guddiga guud ee magaalada iyo dariiqada dadweynaha sharafta leh ee ka soo qayb galay xafladan maanta lagu ansixinayo sharciga iskaashatada dariiqada beerato taasoo ah muddo dheer aynu raadinaynay inagoo iskaashato qadiimiya ah iskaashatadaasoo runtii ilaa muddo dheer soo qaadatay sidii ay dariiqadan ay uga shaqayn lahayd horena u soo jirtay sharciyadeedii hase yeeshee ay markii hore ay ku dhisneed ee iskaashatinimadeedu da ay burburay oo dee dalka wada burburay hase ahaatee iminka dibi cusboonaysiin lagu sameeyey taasoo ay soo diyaarisay hay-addan aad oo ayna ka gacan qabatay sidii sharciga loogu samayn lahaa iskaashatada hay-addaasoo run ahaantii maanta gacanta ku haysa howlqabadka iyo waxqabadka iyo horumarka runtii dariiqada iyo iskaashatada taasoo ay runtii soona diyaarisay sharcigii waxqabadkii halkan ka diyaarisayna uu yahay ruanta iskaashatada dhismaheeda oo ay taabo gelisay ilaa sharcigii ilaa waxqabadkii oo cagafyadii leh wax soo saarkii runtii ay taabo gelisay mashiinkii lagu ridqayay hadhuurhka hay-addaa runaantii mahadnaq ballaaran baan halkan uga soo jeedinaynaa anigoo ah xildhibaankii ka soo baxay dariiqadan beerato oo ah dadkii dariiqada u dhashayna ah dadkii aasaaskii iyo hoggaankii dariiqadana ahaan nahay runtii waanu ku soo dhaweynaynaa si sharaf leh oo qiimo leh ayaan maanta ugu mahadnaqaynaa hay-addaa iyo dadka waxqabtay ee kale iskaashatada ka tirsanba wasalaamu calaykum iminkana sharcigii baa laynoo akhriyi doonaa waa inaynu sharcigaa ku dhaqannaa oo si sharaf loogu dhaqannaa waa horumarkeennii waa kaynu ku kala baxaynay waa kaynu isku hagaynay waa kaynu horumarka caalamka ku gaadhi lahayn runtii aynu ku dhaqannaan leenahay sharcigiina waa laynoo akhriyayaa maanta laga bilaabo halkaasaynu ku ansixin doonaa dalela kulley hadalka intiisa badnaa waa la yidhiyo wax badan oo la yidhaha ma hadhin horta marka hore waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka ugu horreyn guddoomiyaha magaalada cabdilaahi sharci yaqaan cismaan tarabi oo wax badan naga caawiyey sharciganna dee isagu nooga aqoon badnaayo naga caawiyey dejintiisa iyo xeerarkeeda iyo waxaba xildhibaanka yuusuf maxamed iyo isuduwihii beeraha ee gobolka hoosna inala fadhiya jamaal deeq iyo dhammaantiin kasoo qaybgalayaasha iyo guddiyada kale waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa ka bacdi horta mid baan ayaan ka cudur daaranayaa dadku waxaan xeerarkan marka la eego ma aha annagu waxaanu ka hayad ahaan soo qorqorannay oo aanu doonayno inaad ku socodsiino laakiin waa wax aada ogeydeen
tababar bartan lagu qabtay tababarka ay joogeen guddida iskaashatadu goobjoog bay ahayd xubno guddida tuulada ka mid ah goobjoog bay ahaayeen dad kale oo ururada bulshada ka mid ah ama dumarka ahaadaan goobjoog bay ahaayeen waxaa isna goobjoog ahaa sharci yaqaanka oo hawsha waday iyo isduwaha beeraha Jamaal Deeq inta goobjoog bay ahaayeen sharcigan waa sharci ka yimid ka dhexdiina oo aaraa iyo ra'yiyo dadka laga ururiyay weeyaan oo dadana la sharciyay sharcigu wuxuu ka kooban yahay sida uu sheegay sharci yaqaanku ilaa 10 page wuxuu ka hadlayaa iskaashatada iyo iskaashatinimada iyo waxa iskaashata lagu yahay iyo sidii iskaashatada loo hagaajin lahaa ee kor loogu qaadi lahaa oo qura wuxuu ka hadlayaa ugu horeyn ujeedada ama ujeedooyinka loo aasaasay iskaashatada markii hore 1968 laga soo bilaabo oo ay ugu horeysay in la hirgeliyo iskaashato tacab wadaaga in tacabka laga sinaado oo uu ka dhaxeeyo muruqa iyo maalka iyo maskaxduba in laga sinaado dhib iyo dheef wixii la soo gudboonaada iskaashatada in la hirgeliyo iskaashato beeraley ah oo higsata dadayowga horumaray isla markaana si looga midho dhaliyo horumar la taaban karo in laga faa'iideeyo kheyraadka dalka lagana maarmo cuntada dibadda inaga imanaysa ujeedooyinkii muhiimka ahaa ee loo aasaasay marka hore horta intaasi ahaayeen waxa ku xiga xeerka labaad oo ah iskaashatada iyo lahaanshaheeda ama ownership-ka waxa la yiraahdo marka hore iskaashatada waxa iska leh oo aasaasay oo asaaskeeda iyo mulkigeedaba leh oo bilaabay dadkii dhulka lahaa oo ah xubnaha ku midoobay ee isku darsaday dhulka beeraha ah dhinaca isticmaalka isaga iyo wax wada beerashada waa laga siman yahay mid mashruuca wax ku lahaa dhul ku darsaday iyo mid aan ku darsaninba qof kasta oo xubinka iskaashatadu wuxuu xaq u leeyahay oo sharcigu siinaya in loo doorto inuu noqdo xubnaha iskaashatada maamula ee guddida ah iyo inuu isagu wax doorto labadaba qof kasta oo ka mid ah xubnaha iskaashatada waxa loo dooran karaa maamulka ama hoggaanka iskaashatada haddii laakiin uu buuxiyo shuruudaha looga baahan yahay ee mas'uuliyadeed qodobka shanaad wuxuu dhigayaa xeerka labaad qodobkiisa shanaad wuxuu dhigayaa in la dooranayo maamulka iskaashatada waxa lagu soo xulayaa astaamaha mas'uuliyad wanaagga ay ka mid tahay xilkasnimo aaminimo karti howlkarnimo daacadnimo maamul wanaag shakhsiyad wanaag ama dabeecad wanaag waxaana loo eegi doonaa taariikhda uu dadka ku dhex leeyahay yani qof walba in wax loo dhiibto maaha CV-giisa la eegaya qof kasta oo loo dooranayo maamul iskaashato waa inuu yahay qof maskaxaan iyo miyir ahaanba buuraa oo caafimaad qaba saasuu sharcigu dhigayaa maamulka iskaashatada ama guddida iskaashatada sharcigu wuxuu siinayaa in lagu bedeli karo ama lagu dooran karo shirweyne oo ay shirweynahana ay qabanqaabinayaan dadka iskaashatada leh oo dhan ay dooranayaan yani 5 qof meel u baxdo dadana ay guddi soo doorato ayaa la diidaya inkastoo ay dadku cid tiro yar oo waxgarada la xil saaran karo haddana laakiin dhammaan dadkii iskaashatada waa inay ka warhayaan wey xagga ka warhaynta xeerka waxaan ka mid noqoshada iskaashatada yani iskaashatada sidee looga mid noqon karaaba ayaa isna jira xeerkaasi wuxuu dhigayaa iskaashatada wuxuunbaa horta marka hore ah guud ahaan xubnaha iskaashatada ee rasmiga ah waxaa loo aqoonsan yahay ama loo aqoonsaday sharci ahaan intii dhulka isku darsatay markii hore laakiin waxaa ka faa'iideysiga mashruucu qof kasta oo reer beerataa oo degaana wuu furan yahay iskaashatada mulkigeeda iyo maamulkeedaba waxaa iskale xubnaha iskaashatada oo ah intii dhulka isku darsatay qofka ka faa'iideysta mashruuca iskaashatada ee aan asal ahaan dhulka beeraha aan lahayn waxba ku lahayn kama mid aha xubnaha rasmiga ah ee iskaashatada ee waxa la yiraahdaa loona aqoonsan yahay ka faa'iideysti waxaan ku koobnaan doonaa ka faa'iideysigiisa ugu ka faa'iideystayaasha cusub ee ku soo biiraya haddii ay dad cusub yimaadaan oo damcaan inay ku soo biiraan la qodashadii mashruuca ee aan asal ahaan dhulka beeraha wax ku lahayn jirin beeraha mashruuca iskaashatada doonayay inay ku soo biiraan
waxaa laga qaadayaa lacag u dhiganta lacagta markaas sanduuqa iskaashatada ugu jirta qofkii hore u beeran jiray yacni qof dadku markay wax wada beertaan dhaqaala haddii jirayo sanduuqa iskaashatada waxbaa ku jiraya soo ma sanduuqa iskaashatada wixii ku jira la qiimeynayaa deetana dadka meesha wada qotaa la qiimeynayaa beer qof wixii kaga soo hagaaga shakhsi ayaa qofka doonaya inuu la qotana isna laga qaadi doonaa marka dee ay u yimaado dhaqaala yimaado xeerka hanti dhowrka hantida iskaashatadu leedahay haddii ay tahay hanti guurtaa iyo haddii ay tahay hanti ma guurtaa sida dhulka qalabka mashiinada iyo wixii lamid a waa hanti guud oo aan cid gaari lahayn oo u dhaxaysa xubnaha dadka ku midoobay iskaashatada oo aan qofna iskii ugu takrifali karin una adeegsan karin waxa kaliya oo loo isticmaali karaana ay tahay hanti guud dhulka ka dhaxeeya xubnaha iskaashatadu waa dhul isku furan oo aan cidina kala yeelan karin oo aan xad lahayn soodin lahayn waxba lahayn sidoo kale xuduudda dhulka iskaashatadu waa mid lama taabtaan ah xuduuddii dhulka iskaashatada qof walba waxaa ku waajiba in uu iskii u ilaaliyo sababtoo qof walba mas-uuliyad gaara ayaa ka saaran waxaana ka reeban in lagu soo xadgudbo ama la kala xadaysto ama la kala ooto ama waxyaabo noocaas hantida iskaashatada hantida waaweyn sida cagafta waxyaabo noocaasa ee iskaashatada ay iska leedahay maaha wax la iibin karo maaha wax la bedeli karo xitaa haddii ay xumaato oo eedaado oo ay dhimato ilaa dadka iskaashatadu ay wada og yihiin maaha wax inta la iibiyo dadna mid cusub la soo iibsan karo haddii ay duruufo timaado oo ay matalan la doono iyadoo sanduuqa dhaqaale ku jiro in inta tan la iibiyo mid cusub la soo iibiyo markaa waa in dadweynaha la isugu wada yeedhaa shir looga sheegaa dabeetana sidaa lagu ansixiyaa haddii kale dee isku dhac baa ka imanayo qofkii lagu helo inuu weecsaday wax soo saarka si guud loo wada leeyahay oo dalagii inoo soo go-ay oo kale hadduu iyadoo aan la ogeyn uu joonyad meelaha kula baydho oo laakiin weecsi fudud ah maaha mid weyn maaha weecsi fududoo dee wax yaryara waxaa lagu xukumi doonaa 100 kun oo shilin oo shilinka somalilan oo ganaax ah hantida uu weecsaday qiimaheedana waa laga qaadaya oo lagu yeelanaya sidoo kale waxaa la siinayaa digniin haddii uu mar labaad u noqdo marka waa laga fadhiisan doonaa waxaa laga yaabaa inuu xubinimadiisa iskaashatada ku waayo okay xeerarka ciqaabta markaynu nimaadno waxaa loo kala saaray laba xeer oo xeerka ciqaabta dembiyada culus ah iyo xeerka ciqaabta dembiyada fudud aan ku horeeyo xeerka ciqaabta dembiyada culus ee lagu waayi karo xubinnimada iskaashatada qofka geysta falal lagu burburinayo iskaashatada ee muujiya cadaawad uu ku mijaxaabinayo masiirka iyo horumarka iskaashatada waxaa si toosa looga saari doonaa xubinnimadiisa iskaashatada oo uu waayi doonaa qofka ay ku caddaato dembi ka dhan ah wada lahaanshaha isla markaana ku soo xadgudbo xuduudda dhulka iskaashatada waxaa si toosa isna ugu waayi doonaa xubinnimadiisa iskaashatada oo laga saari doonaa qofka ku tagrifala isla markaana boob iyo dhac toos ah kula kaca hantida culus ee iskaashatada ee cagafyada iyo mashiinada iyo lacagta ummadda iyo waxaas ku jirto ee lagu helo cadaymo isna wuxuu si toos ah u waayi doonaa xubinnimadiisa iskaashatada iyadoo laga magdhabayo weliba hantida uu lunsaday isla markaana waxaa la horgeyn doonaa maxkamad sharciga oo distoria qofka ay ku caddaato faragelin uu faragelinayo khayraadka ka dhexeeya ummadda sida tusaale ahaan dixda oo kale biyaha geynaysa mashruuca oo kale damcaa inuu si gaara isaga uga faa'iidaysto u jeexdo isagoo si gaara uga faa'iidaysanaya wuxuu ku waayi doonaa isna xubinnimadiisa iskaashatada waxaana la saari doonaa maxkamad iyadoo loo cuskanayo qodobka 491 ee xeerka ciqaabta guud ee dastuurka Soomaaliland ciddii lagu helo dembiyadan culus waxaa ka fadhiisan doona guddida iskaashatada marka hore waxaanay u qaadi doonaan cod haldheeri ah qofka ka qayb qaadan waaya ama iskii u diida qaaraanka iskaashatada tan haddii qaaraan matalan lagu yabaho isna wuxuu waayi doonaa maadaama qofka qaaraanka iskaashatanimada diiday qof iskaashatadii diidayba ayuu ka dhigan qofkaasina wuxuu si toos ah u waayi doonaa xubinnimadiisa iskaashatada haddii uu dhaqdhaqaaq sameeyo markaa uu rabshad iyo waxa ku abuurayana waxaa la horgeyn doonaa maxkamadda dastuuriga xeer ciqaabeedka dembiyada fudud
qofka deegaanka ah ama iskaashatada ah ee lagu ogaado inuu habeenimo miro xoolo daajiyo mashruuca iskaashatada ay dadku ay wada leeyihiin waxa lagu ganaaxayaa 300 oo kun oo Somaliland oo shilling ah qofka si bareed ah ama ula kaca maalinimo xoolihiisa ugu daaqeeyay gudaha mashruuca isna waxa lagu ganaaxayaa 200 kun qofka si bareed ah ugala baxa mashruuca xoolo ka soo galay يعني حواليه soo galay mashruuca oo dad doon ciyaal wadaan ama iyagu bay iskooda soo galay oo ahayd in la qasiro ayuu si bareeda u kaxaysto u diiday maamulkiisa u diiday ku horiyay si bareeda u kaxaysto ujeedadiisu ah inuu xoog u isticmaalo si uu xoolaha ula baxo ama uu sameeyo amir diido isna waxa lagu xukumayaa 200 kun oo Somaliland waxaana qabanaya qodobka 264 ee xeerka is-hortaag sharci la yiraahdo SPC يعني هو شرعي Somaliland دجسوي حولها si kama ah yani iyagu si kama ah isaga gala mashruuca ama ba kaba talaaba faaga mashruuca waxa lagu ganaaxiyaa ishinka oo kale inta ishin la isku yiraahdo 2500 shilin ala neef arigana waxa lagu ganaaxiyaa 500 shilin ala neef waayo waxay yiraahdeen qolooyinka gudiyada iyo qolada tababar ka qayb qaata arigu mar walba uu ka badan yahay ishinka marka hadii 500 shilin laga badiyo lacagta ciida ka badanaysa ninka 100 neef ka soo galaan de waa kabaabu dhigayaa baa xoolaha mashruuca gale ee geesta wax yeelo waxa ay geesteen waxa loo tirinayaa oo laga doonayaa qofka xoolaha leh xoolaha daaqa saraca beerta ee gudaha mashruuca saracaas oo maraya heerka dheelida loo yaqaano waxa lagu ganaaxayaa hadii uu haruur yahay waxa uu taaqay haruur dheeli maraya 500 shilin baa loo xisaabinayaa ala geed hadii ay digir tahayna waxa loo xisaabinayaa ala 1500 hadii ay sin tahayna waa 1500 hadii galli tahayna waa 500 shilin xoolaha daaqa saraca oo gaari marka heerka midho dhalka isagu marka dheelidu u dhaafo midho dhal saraca uu taaqay hadii uu haruur yahay waxa loogu dhufan doonaa ala geed wixii xoolahaasi taaqeen 1000 shilin hadii uu galli yahayna waa 1000 shilin hadii sin tahay waa 3000 hadii digir tahayna waa 3000 shilin hadii caruurayooga gala mashruuca isla markaana wax yeeleeyo saraca waxa lagu ganaaxayaa 10000 shilin hadii ilmaha geer galo 10000 shilin baa laga soo doonayaa taqsiir ah waxyeelada geedkana waa lagu ganaaxayaa iyadoo loo eegayo nooca geedka uu jaray heerka uu mariyay oo lagu saleynayo qiimaha loo jaray ee ku cad qodobada qodobka shanaad iyo qodobka afraad qodobka lixaad baan u jeedaa ee xeerka number 4 oo ah kuwii markaan sheegay qofka lagu helo inuu مثلا عوس ama geedo iyo waxyaabo noocaas ka baxay mashruuca oo intuu jaro dabeetana uu ka soo gurto mashruuca oo kala soo baxo waxa lagu ganaaxayaa ganaax ku saleysan qiyaasta geedaha uu kala soo baxay oo kala ah hadii uu dhabarka lagu qaado midna dhabar qaad meesha kala yimaado iyo hadii uu jawaan kala yimaado labada qaybood la israaciyay waxa lagu ganaaxayaa 10000 shilin hadii uu gaadiidka haysto marka gaadiidkaas oo inta ugu yar yahay kaariyone uguna weyn yahay gaari na waxa lagu ganaaxayaa 100,000 shilin mala gaari ciido ka xaysan maysa gaari ximaar ba filayeen ugu weyn awriya qofkii lagu qabto ama ay ku cadaato inuu cawska ka guranayay meelaha aan sharcigu banayn oo ah inta aan tacabkiisu gaarin yani beerta qofku gudaheeda uu beerto isaga iskala dacawskeedii wixii laakiin inta aan tacabkiisu gaarin ee aanu beeranin gurta oo intaasi waa inta iskaashatadu leedahay iskaashatadu ay guranayso qofka gurta kaas oo aan laakiin wali kala soo bixin gudaha mashruuca ee gudihii ku jira waxa laga wareegayaa geedihii oo jaray oo iskaashatadu ay kala wareegaysaa waxaana la siinayaa digniin ka waxba lagu xukumayo waa loo digaya markaa xigta waxa lagu ganaaxayaa 100,000 shilin oo Somaliland qof kasta oo mashruuca wax ka beertay kaas oo ka maqnaada iyadoo la shaqeynayo oo shaqadii ay jirto maqnaada ama la fulinayo hawl maalmeedka joogtada ah ee beeraha mashruuca laakiin waa hadii uu yiday aan cudur daar jirin
qofta kawuho doona dhakhtar loo qaadayo ma kuwaas kaasi kuma jiro waxa lagu ganaaxayaa qadar lacageed oo ah yoom kuuliya oo hadba wixii maraya oo qof de shaqaalaha in loo diray micnaha ah xeerka kobcinta dhaqaalaha aynu nimaadno waxa laga maarmaana iskaashato mar hadii la yahay ama urur la yahay mar walba in la helo dhaqaale waa laga maarmaan hadii kale de aan dhaqaale jirin dadka ay leeyihiin oo sanduuqa iskaashatada ku jira de iskaashatada markaa ma jirayso si looga midho dhaliyo himilada in la helo iskaashato awood leh oo dabooli karta baahiyaadka asaasiga ah loona gaadho horumar waa inuu jiro sanduuq dhaqaale oo iskaashatadu leedahay isla markaana danaheeda ay ku fuliso qodobka labaad qof kasta oo mashruuca qodanaya xilli qodaal kasta ama xilli roobaad kasta waxa uu bixinayaa fiiga waxa la fee oo registration fee ah fiiga iskaashatada oo ah 25,000 oo shilin halkii sheerba yani qofka sheer qodanaya wuxuu bixinayaa 25,000 oo shilin oo fiiga oo ku dhici doona qasnada iskaashatada haddii ay iskaashatada ku soo korodho hawl dheeraad ah oo u baahan dhaqaale waxa loo qaybsan doonaa si siman tusaale ahaan qaadaankii weey haddii tusaale ahaan hay'adaha samafalka ah ee keenaya caawimada ay iskaashatada ku xidhaan ee lacag ku darsiga ama contribution ka loo yaqaano waxyaabaha culus ay inoo keenayaan oo kale ay ku caawinayaan isla markaasna aan lacagtaasi ku jirin qasnada iskaashatada waxa loo qaybsanayaa lacagtaasi siman mid iskaashatada wax ku leh iyo mid aan wax ku lahayn oo ka faa'iideysto ka beertaba dalaga ka soo go'a mashruuca ee iibsama iskaashatadu waxay ku leedahay ama ku yeelan doontaa sanduuqeeda ku dhici doona 5% oo micnaheedu yahay 100 kiilooba waxay ku leedahay 5 kiilo iskaashatadu haddii 100 kiilo ku baxaan ama 100 kiilo micna laba gadboodba dhaho haddii ay laba gadbood qofka u soo go'aan waa 5 kiiladii 5 galaan miya 5 galaan baad ayad daraysaa oo qalalan ama qiimaheeda lacagnimo iskaga bixinaysaa de waa jawaan baa siisan jawaan baa qof siin leeyahay bahda doontaan marka 5 kiilo waxba ma haban maranay dhinaca maamul wanaaga xeerka maamul wanaaga iyo wax wada lahaanshaha qof kasta oo beeraleyda ahi wuxuu xaq u leeyahay inuu beertiisa ama dalagiisa uu harameeyo ama caws ka guro isla markaana uu ku kaydsado goob kamid ah goobtii beertiisa oo aan gudaha uga soo bixin haddii uu gudaha uga soo baxo waxa qabanaya xeerka marka hore soo sheegnay waxaana ka reeban oo dambi ah inuu cawska dibadda uga soo baxo mashruuca ilaa xilliga beero go'a iyadoo laga hortagayo faragelin daabul ah indee meesha la daabulo ay qasifanto oo maamulku waasho dhulka kamid ah mashruuca ee aan taab gaarin ama aan cid qodanin cawska ka baxa mar walba waxa iskale iskaashatada waxa kaliya ee uu qofku xaq u leeyahay wixii ka baxa beertiisa ama inta taabkiisu gaaray qora dadka iskaashatada ku jira waxay ka siman yihiin wax kasta oo xuquuq ah iyo wax kasta oo caawimo ah oo dibadda ka yimaada yani si siman baa loo leeyahay caawimada dibadda ka imanaysa haddii aanay ahayn qalab culus oo mishiino cagafyo waxyaabo noocaas oo hanti iskaashato hanti dadweyne noqon karta haddii aanay ahayn wala qaybsan karaa oo haddii kaariyoonayaa laydin keeno ama sharfado laydin kaariyoonaashu waaweynka yar noqonayaan malaa sharafado iyo faraliyo waxa haddii laydin keeno dee lama odhan karo iskaashatada leh bartaa ku qufle marka taas waxaas yarar waa la iska qaybsan karaa laakiin wixii waaweyn lama taaban karo qofka iskaashatada kamid ah ee ku soo mara xoolo matalan xoolo daaqaya beeraha oo kale ku jira mashruuci isla markaana aan danaynin ama iska soo dhaafa wuxuu lumiyay qofkaasi oo loo aqoonsan inuu lumiyay dareenkii wax wada lahaanshaha xeerkaas meel kaga dhaca waxaana loo aqoonsanayaa mudayac sidoo kale waxa lagu ganaaxayaa 50,000 oo Somaliland shilin qof kasta oo iskaashatada ah oo amar diida sameeya ama u gurman waaya danta guud sida dixda oo jabta gubasho ka dhacda mashruuc oo kale waxay disasterka deeyahay kuma keeneen way iman kartaa qofka diida waxa lagu ganaaxayaa 50,000 oo shilin haddii markaa caadeysta noqdana waxa qabanaya xeerkii amar diidada hore aynu soo sheegnay xubnaha iskaashatadu mid wax kula iyo mid ka faa'iideysta ahiba waxay ka siman yihiin dib iyo dheef wixii qaadaan iyo shaqo ahna
si isku mid ah ayay uga wada qayb galayaan taa micnaheedu waxa weeyaan ma dhulka wax ku lahow ama wax ku lahaan wax lagu kala duwan yahay ma jirto wax walba xuquuq ah iyo wixii hawl ah waa laga sameeyay iyo wixii dheefaba qofka mashruuca iskaashtada ka faa'iideystay isla markaana aan waxba ku lahayn dhulka iskaashtada ee amar diida la yimaada ama ka qayb qaadan waaya hawlaha waaweyn ee wada jirka loo qabanayo sida dixda oo la xidhayo iyo wixii la mid ah kaas isagu ka yara weyn yahay oo isagu waxa lagu xukumayaa $50 haddii uu mar labaad dambiga noqdana wuxuu waayi doonaa ka faa'iideysigiisa waa loo diidayaa inuu mashruuca uu dib dadka ula qoto xeerka hoggaanka iskaashatada ama guddida xeerarka qabanaya muddaxilaadka qodobka koowaad guddidu muddaxilaad bay leedahay muddaxilaadka guddida iskaashatadu waa 2 sanadood waxaana lagu dooran karaa laguna bedeli karaa shirweyne dhammaan howlaha iskaashatada iyo mashruucaba waxa hagi doona oo xil ka saaran yahay guddida iskaashatada waxa alla wixii shaqo daayac ama gaabis ah ee ay la yimaadaanna waxa lagula xisaabtami doonaa waxaana kula xisaabtamaya oo isha ku haynaya oo ku monitor gareynaya ku eegaya gudoomiyaha magaalada ama sheekh dariiqa oo ay wuxuu hoos imanayaan maamulka iskaashatada ama guddidu waxay ka kooban yihiin oo ku jirta wax ka kooban yihiin marka hore guddida fulinta iyo xubnaha guddida ay kala qaybsamayaan guddida fulinta oo iyadu wax alla wixii fulineed awood u leh xeerkan markaa wuxuu kala xadeynaya in qof xubnaha guddida ku jira oo waxyaabo fulinada isku qaado oo shaqadii gudoomiyaha uu qabto dadba isagoo xubina ama shaqadii xogayaa uu qabto bal haddaba sii kala saaro mas-uuliyadaha aan ka bilaabo gudoomiyaha mas-uuliyadiisu wuxuu xaq u leeyahay mar walba go'aanka kama dambaysta ah ee guddida iskaashatada oo shir guddoon isagu gudoomiyuhu wuxuu leeyahay inuu isugu yeedho guddida iskaashatada iyo inuu gudoomiye shirarka dhexdooda ah labadaba ka qayb galaya shirarka wasaaradaha dawliga hay'adaha maxalliga isagoo mar walba ku xidhnaanaya lana tashanaya sheekh dariiqaha magaalada oo sheekh dariiquhu de hawlo badan oo aan ogeyn ma qaban karo oo wada sheekh dariiquhu wada ninkii hoostigay mas'uuliyadda xogayaha oo la tashanaya gudoomiyuhu wuxuu xaq u leeyahay fulinta dhammaan qawaaniinta sharci ee u dejisan iskaashatada waa sharcigan fulintiisii weey isagoo la tashanaya gudoomiyaha iyo xubnaha kale fulintaaba hawlgelinta iyo isku dubaridka hawl maalmeedka iskaashatada isagana sidoo kale waxa leh xogayaha waxa laga doonayaa inuu kaydiyo dhammaan qoraal kasta oo ka soo baxa hay'adaha dawliga ama hay'adaha maxalliga iskaashatada lafteeda iyo wixii lamid ah xitaa xeerarka wax alla wixii warqad ee qoraal ah ama cid u soo dirta ama ayagu cid u dirayaan waxa laga doonayaa xogayaha waxa laga doonayaa qorshe inuu sameeyo qorshe sanadeed sanad kasta inuu qorshe sameeyo ku saabsan wax beerashada iskaashatada qorshayaasha isaga ay inuu mufakkir noqdo weeye qofka xogay oo qofka ugu shaqada badan xisaabiyaha marka uu yimaado mas'uuliyadiisu waxa weeyaan oo laga rabaa inuu xil weyn iska saaro dhaqaalaha iskaashatada iyo inuu soo bandhigo xisaab cad oo xalaal ah xisaabiyuhu wuxuu la socdaa waa inuu la socdaa kororka iyo dhimista dakhliga oo waliba sabab u sameeyaa waa inuu sababeeyaa haddii ay dakhligu hoos u dhacana waa inuu sababteeda sheegaa isaga laga rabaa waa mas'uuliyadiisa haddii uu dakhligu kor u kacana waa inuu sababeeyaa waa wasiir Soomaaliyeed wasiirka maaliyadda mas'uuliyadda qasnajiga haddii aanu imaado qasnajiga waxa laga doonayaa inuu ku bixiyo hantida uu hayo juwan ay soo wada saxiixeen guddida fulinta ee iskaashatada oo gudoomiyihii xisaabihii iyo xogayihii diintaas mid ka mid ah aan ogeyn isaga ku xidhmaya marka waa in loogu yimaadaa marka mar walba fayl waa inuu lahaadaa faylaw loo sameeyo oo uu ku kaydiyo dhammaan qarashaadka ka baxay iyo kuwa soo galay labadaba oo la yiraahdo file and registry system qof kasta oo guddida ka mid ah oo ku kaca hantulunsi waxa
samaynayaa maamuuska xayuubin waxaana la horgeyn doonaa maxkamad dastuuri ah iyadoo loo adeegsan doono xeerka ciqaabta 241 ee sharciga Soomaaliya xisaabiyaha iyo qisnajiga oo iyagu had iyo jeer labada qof ee lacagta ugu dhaw haddii ay lacagta ay hayaan ama ay xisaabinayo ama qisnajigu hayo ay ku bixin waayaan sifa sharciya lacagta waxa laga qaadi doonaa lagu qaadi doonaa xeerka ciqaabta ee 241 sharciga Soomaaliland dastuurka qofka guddida iskaashatada kamid ah ee cudurdaar la'aan maqnaada isagoo aan wax cudurdaari jirin maqnaada 3 kala fadhi isna wuxuu waayi doonaa xubinimada guddinimadiisa ee iskaashatada kala fadhiga guddida iskaashatadu wuxuu qabsoomi doonaa bishiiba hal mar hal kala fadhi bay yeelan doonaan waa kala fadhiyada caadiga waxa jiri doona laakiin shirar iyagoo aan caadi ahayn oo haddii wax soo kordhaan de lama sugayaan kala fadhigoodii kaas isagu waa baab gaara wax ka bedelka iyo wax ku darista midna xeer hoosaadkan imika aanu dhiganay waxna waa laga bedeli karaa waxna waa lagu dari karaa wixii soo cusbanaaday ee soo kordha ee marka ay noola muuqato inay munaasib tahay in sharci laga yeesho waa lagu darayaa maaha wax xiran maaha waxna waa laga bedeli karaa xeerka mar walba waxa ansixintiisa leh xeer kasta oo la sameeyo ogaanshihiisa iyo ansixintiisaba wax xaq u leh dadweynaha iskaashatada xeerkan ama xeerarka iskaashatada waxa wada saxiixi doona guddida iskaashatada oo iyo shaambada iskaashatada ayaa ku dhici doonta isla markaana waxa isna dhinaciisa ka saxiixi doona oo shaambadayn doona guddoomiyaha tuulada ama sheekal dariiqaha sharcigan ugu dambeyntii wuxuu dhaqan gelayaa kolka dadweynaha iskaashatada loo shaaciyo ee loo sheego isla markaana ay ku dhacaan saxiixyada iyo shaambadaha guddoomiyaasha iskaashatada iyo tuulada labadaba wabillahi tawfiiq ilaahay mahadiya ka gaadho waxaan mar labaad horta mahadoo dhan ilaahay baa iska leh waan xoogaa baan filayaa inaan akhriyo ku dheereeyay waan idin mahad celinayaa intay dhageysanayseen waxaan mar labaadna u mahad celinayaa sharci yaqaanka wax badan naga caawiyay iyo isduwaha beeraha xildhibaan koosna bariyaaba hawshan la waday Cabdullaahi Cali Barro xitaa isagoo maqan telefoon nagu la waday dadkaas oo dhan mahad gaar ayaan siinayaa waxaan ku soo gabagabeynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Rabbi Maxamed xildhibaan Yuusuf Maxamed Dibad madaxa aado ee qaybtan mashruucan wada Maxamed Cabdi Xuseen Libaax guddida iskaashatada dhammaan dadweynahan reer beerto xaq salaam salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kullay maanta waxaan u soconay ma ahayn hawlo fara badan wuxuu ahaa xeerkii aad samaysatay haddaad tihiin iskaashatada beerato sidii loo shaacin lahaa maadaama ay soo samaysay guddigii iskaashatada si loogu bandhigi lahaa dadweynihii iskaashatada annagu ka wasaarad beer ahaan xeerkaa maanta imika la akhriyayey waxaan u aragnaa inuu yahay xeer aada iyo aada u wanaagsan oo xakameynaya qofkii xadgudub ku sameynaya iskaashatada gudaheeda waxaanu idinku ballan qaadayna haddaan nahay annagu wasaaradda beeraha iskaashatada beerato inaanu gacan ka siin doono sharcigaa maanta aad samaystay cid kasta oo kusoo xadgudubta waxaanu aada iyo aada ugu mahadnaqaynaa hay-adda ADO si ay usoo daadejinaysay waxqabadkeedii afarta sannadood ahaa ee laga soo bilaabay dixda ahayd tababarada ahaa qodaalada ahaa cagafta ahayd hawlo fara badan usoo qabatay beerato maantana bartii u dambeysay gabagabada maraysa sababta tay waxay gabagabada ku keentay maanta waxa weeye maadaama ay maanta samaysay ay maalgelisay sidii loo samayn lahaa sharciga iskaashatada maanta halkaa waxaa ku dhamaatay hadal dambe iyo jaafaajir dambe waxa weeye halkaa ka soo baxday iskaashato maanta uun doonaysa in la dhaqaajiyo annaguna waxaan waxoogaa idinka dhiman maadaama iskaashatada tihiin sharciga samaysateen waxa idinka dhiman oo keliya weeyaan marka sharciga wasaaradda annaguna dalka wasaaradda beeraha naga camal ka siinna waanu idiin samaynana aad iyo aadna waa salaamantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنا وطن هاي مملكة كاشتدا واحد من بنا قبيها
ودسان وحول قاتنا كله ونقاد كاين إن إمك لكن كله وحبان نوب بحي ده أنتي كرتي ده إن أنا نقول وحبا إسكاكر إنه نسوع على شغلنا يا تنا لقي قناة دالك دو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحمد البرواق دوية مشاهدة مدد الرأي تقتلكم القامة من الملك السوق يدوم معنا يلا مايسي مدد الرأي تقتلكم القامة من الملك السوق يدوم معنا يلا مايسي muruqina malo dulka mira kubero muruqina malo dulka mira kubero macdanta dahabka mujiya wanaga hay mujiya wanaga